Camp Nou garoonka halyeyada waxa uu inta badan soo jiitaa dhammaan taageerayaasha kubadda cagta iyo kuwa kooxda Barcelona. Dhismahan waxa uu soo dhaweeyay qaar ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsaneed ee kubadda cagta adduunka, waxa uuna martigeliyay kulamo waaweyn. Si kastaba ha noqotee, dhismahan waxa ku duugan taariikh iyo xaqiiqooyin xiiso leh iyo kuwa qosol leh. Garoonkii ugu horreeyay ee FC Barcelona waxa uu ku yaal meel u dhow meesha uu hadda ku yaalo Camp Nou Stadium, laakiin aad ayuu u yaraa, mana uusan awoodin in uu martigeliyo dhammaan taageerayaasha iyo mucaashaqiinta Barcelona. Camp Nou waxaa la dhisay 1957 waxa uuna leeyahay 98,000 oo kursi. Waa garoonka ugu weyn qaaradda Yurub, sidoo kale waa garoonka saddexaad ee ugu weyn adduunka. Ma ogtahay in magaca Camp Nou macnihiisu yahay garoonka cusub ee Catalan? Cabirka garoonka Camp Nou waxa uu la mid ahaa kan garoonka Maracana Stadium ee ku yaala magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, kaas oo ah garoonka ugu weyn adduunka. Waxa uuna leeyahay 120,000 oo kursi. Sababo nabadgelyo awgeed ayaa garoonka kooxda Barcelona loo yareeyay. Bedkiisa ayaa markii hore ahaa 107 lagu dhuftay 72 mitir, balse FIFA ayaa Barcelona ku qasabtay in la yareeyo garoonka oo laga dhigo 105 lagu dhuftay 68 mitir. Kuraasta ay wariyaashu leeyihiin ayaa ah 202 kursi, halka kuraasta shakhsiyaadka caanka ah ay yihiin 400 oo kursi. Sidoo kale, shaqaalaha garoonka ayaa ku leh halkaas 1,000 kursi. waxaa mar waliba si joogto ah loo beddelaa saqafka kore ee garoonka Camp Nou si loo ilaaliyo nabadgelyada taageerayaasha soo xaadira garoonka. Mashruuca dayactirka waxaa qabtay ama qandaraaskaasi qaatay naqshadeeyo u dhashay waddanka Britain oo lagu magacaabo Norman Foster, kaas oo soo bandhigay casriyeynta garoonka iyo in la kordhiyo awoodda garoonka Camp Nou ilaa 103 kursi. intaa waxaa dheer, waxaa lagu daray saqaf muraayad ah si uu iftiinka cadceeddu u soo galo gudaha garoonka. Sidoo kale, mashruuca dayactirka garoonka waxa uu ku kacayaa qiimo lagu qiyaasay 300 milyan oo euro. ciyaartii ugu horreysay oo rasmi ah oo ka dhacday garoonka Camp Nou Stadium waxa ay dhacday 6 Oktoobar 1957 markii ay iska hor yimaadeen kooxda Real Jen iyo Barcelona. ciyaartaasna waxaa guul weyn gaartay kooxda Barcelona oo ku adkaatay 6-1. dadka waaweyn oo aan waayeelka ahayn ayaa garoonka Barcelona ee Camp Nou ku soo gala 23 euro. carruurta da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 13 sano iyo dadka waaweyn oo da'doodu ka weyn tahay 70 sano ayaa ku soo gala 17 euro. Sanadii 1992 Camp Nou ayaa martigeliyay ciyaarihii Olombikada. La Joya oo ah xulka waddanka Spain ayaa 3-2 uga adkaaday waddanka Poland ciyaar xilligaasi ka dhacday qalcadda Barcelona ee Camp Nou. Camp Nou ayaa ka dhigan jaamacad banooniga lagu dheelo, balse waxaa ku lamaanan macadka caanka ah ee La Masia, kaas oo ay ka soo qalin jebiyaan ciyaartooy cajiib ah.